السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دلكين بملك السوجوكتان يسول بدولوسات جنالك بشير بردرا اوفيشيال كسر هذا برامج كده الحسكة وياها وحنا كوسو جبين دونا تضبط فريهان الدنيا كود وتاجر سنة لبض كونسل عليه طبعا انت انا نوجد الجلن مقال كوحنا تقع السنة يا انا سبسكرايب جريسان لا جريسان واتكمنت جريسان جنالك بشير بردرا اوفيشيال هذا warbixintan xiisaha badan ee barnaamijka dalxiiska waayaha ee aan ku eegi doono toddobada feeriyahan ee ugu taajirsan dunida sanada 2019 iyo sida boosaska ay ugu kala jiraan lacagaha ay haystaan iyo wax walba oo aad uga baahan tahay annagoo ka bilaabi doona nambarka 7 ee warbixintan booska 7 waxa ku jira feeriyahanka caanka ee lagu magacaabo Vitali Klitschko waxaana uu haystaa hanti gaaraysa 65 milyan oo dollarka Mareykanka ah booska 7 ee warbixintan ayuu ku jiraa booska 6 waxaa soo galay feeriyahanka lagu magacaabo Sugar Ray Leonard waxa uu haystaa hanti gaaraysa 120 milyan oo dollarka Mareykanka ah waxaana uu ka mid yahay liiska warbixintan booska 5 waxaa ku jira feeriyahanka lagu magacaabo Lino Lewis waxaana uu ka mid yahay feeriyahanada ugu halista badan 130 milyan oo dollarka Mareykanka ayuu haystaa waana taajiriinta warbixintan ku soo baxay booska 4 waxaa soo galay Oscar de la Hoya hantidiisu waa 200 milyan oo dollarka Mareykanka ah booska 3 waxaa ku jira feeriyahanka weyn ee Manny Pacquiao waxaana uu ka mid yahay feeriyahanada ugu cajiibsan 200 milyan oo dollarka Mareykanka ayuu ninkan haysaa xilli la xasuusto in kulan adkaa oo feer uu u baxay feeriyahanka cajiibka ee Floyd Mayweather xilli uu la kulmay wajigabax iyo wax uusan filaynin booska 2 ee warbixintan waxaa ku jira George Foreman waxaana uu haystaa adduun gaaraya 250 milyan oo dollarka Mareykanka ah booska 1 waxaa ku fadhiya feeriyahanka aan loo dhawaan karin isla markaana biladaha iyo balmarinada badan qaatay ee Floyd Mayweather Jr. waana hantiile qani ah oo caan ku ah xirfadda feerka isagoo haysta 380 milyan oo dollar isagoo ka macaashay kana faa'iiday xirfaddan uu leeyahay ee feerka uu ka mid yahay kuwa ugu halista badan ee gebiyahan dunida booska 1 isaga ayaa ku fadhiya waana 7 feeriyahan ee ugu taajirsan dunida sanada 2019 waan filayaa inaad ka hesheen isla markaana aad la dhacday warbixinta xiisaha badan gibiyaan halkaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka dalxiiska waayaha tan iyo barnaamijka la inta dib u kulmi doono waa Bashir Maxamed Bardaro galiyo Here we go.